السلام الله عليكم. أنا كان جدا ونسين Wanaaga qoyska ala ugu barateen warka ugu dambeeyay barnaamijka xiiso leh. Waxaa maanta Shil Gaari Galay Kabtan Ayub oo caan ka ah baraha bulshada ee isticmaasha Soomaalida. Kabtan Ayub ayaa ah wiil Soomaali oo ku nool dalkaas Jarmalka oo inta badan falaaqeyn ka bixiya siyaasadda Soomaaliya. Kabtan Ayub ayaa saakay shil gaari ku galay wadanka Jarmalka sida wararka nagu soo gaarayaan ay sheegayaan in dhaawac ka soo gaaray madaxa iyo luqda qaybta sinta. Waxaan Allah ugu baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Dhanka kale, Shil Gaari oo saaxiib dhow yihiin Kabtan Ayub ayaa saacado ka hor sheegay in Kabtan Ayub uu qalliin gali doono uuna ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inuu soo duceeyaan. Shil Gaari oo warkiisii wada ayaa sheegay 30 daqiiqo kahor inuu la hadlay Kabtan Ayub xaaladiisa caafimaad ee aad u fiicneed, laakiin uu ka codsaday ummadda Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan. aniga Kabtan Ayub 30 daqiiqo ka hor baan la hadlay taliyo saaka markii aan ogaaday inuu shil gaari galay. waxaan la hadlay ilaa 4 jeer. miyirkiisu aad buu u fiican yahay. waxaa loo sheegay inuu qalliin gali doono. sidoo kale ninka kale ee dhalinyarada ah ee Indho Axmed isaguna sidaas la mid ah waxaa loo sheegay inuu qalliin gali doono. waxaan u malaynayaa inkastoo aan isaga taleefon kula hadlin inuu hadda qalliin ku jiro. dhanka kale, Shil Gaari oo hadalkiisii wata ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in loo duceeyo walaalkan Kabtan Ayub oo qalliin degdeg ah gali doono. waxaan Ilaahay ugu baryaynaa caafimaad degdeg ah inuu siiyo walaalkeena Kabtan Ayub. dhanka kale, dadka baraha bulshada caanka ka ah farxiya kabayare laki waceys iyo xaaji dabca sare ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay waxay barteeda Facebook kusoo qorayeen duco ee ay ka codsanayaan ummadda Soomaaliyeed inay u duceeyaan. hadalladan waxaa bartiisa Facebook kusoo qoray macallin Cabdiraxmaan xaaji dabca sar. Allah waxaan ka baryaa inuu caafimaad siiyo walaalkeena Kabtan Ayub. fadlan usoo duceey walaalkeen maanta oo kale ayuu walaalka hiilo dhinac walba kaaga baahan yahay. dhanka kale, fanaanada caanka ah farxiya kabayare ayaa barteeda Facebook kusoo qortay hadalladan. waxaa hadda la isoo sheegay inuu Kabtan Ayub shil gaari galay oo qalliin lagu suubin doono. Ilaahay waxa uu baryaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. u duceyno waa maalin Jimcaha inuu walaalkeen qalliinka u fududeeyo, Ilaahayna caafimaad degdeg ah siiyo. halkaan naga daawanaysiin waa Wanaaga qoyska ala ugu barateen wararka ugu dambeeyay. fadlan haddii aad cusubtahay subscribe habeenkana ku wacnaado.